sababta keentay inaan macallimiinta aan diiwaan gelino waxa waaye codsi nooga yimid bulshada qaybaheeda kala duwan iyo macallimiinteenna gobolka Banaadir ee wax ka dhigtay ayaa waxa nooga yimid codsi inaan muxuu ahaa loo helo macallin diiwaan gashan oo la yaqaano oo tayeysan in la helo si marka arrimahaas uga jawaabno ayaan waxaan muxuu ahaa maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan agaasiga waxbarashada uu bilaabay inuu diiwaan geliyo macallimiinta gobolka Banaadir waxaa macallimiinta in la diiwaan geliyo muxuu ahaa loo sameynayaa macallimiinteenna dhammaantood waxay ka kooban yihiin macallimiin leh qaarkood khibrad muddo dheer qaar khibradooda ay cusub tahay inta way iskugu jiraan sidaa daraaddeed marka waxaan u baahanay inaan ogaano macallimiinta noo joogta gobolka Banaadir ee iskuulaadka wax nooga dhigta imise macallin ayaad ka baxday kuliyadda waxbarashada oo haysta shahaadada waxbarashada oo ah inuu macallin yahay macallin loo soo tababaray inuu arday wax u dhigo yayna ogaano macallimiinta aan kuliyad tarbiya ka soo bixin haddana macallin ah ee aan u baahan inaan tababar u sameyno gaarsiino ina macallin uu noqdo macallin rasmi ah isagana oo ardadii qaybaheeda kala duwan u dhigi kara sababta haddaan macallinkan la tababarin oo meesha la gaarsiin ma soo baxayo arday tayeysan waxaa kaloo jirta iyadana oo aan dareemaynaa in maadooyinka qaybo ka mid ah ay dabargo-ayaan marka dabargo-aas maxay tahay inay sii baaba'ayaan see u baaba'ayaan marka hadda ma hubin karno oo ma dhigi karno hebla iyo hebla iyo hebla hadda meeshan kama sheegi karno oo baaba'aysa laakiin imtixaanaadkii aan qaadnay labadii sana lasoo dhaafay markaan fiirinay maadooyinka ugu hooseeya ee muxuu ahaa ugu bundada liita maadooyin isku noocay noqdeen maadooyinka isku nooca markaan aragnay inay labadii sanaba isku maadooyin yihiin maadooyinka liita waxaan muxuu ahaa waraysi la yeelanay macallimiinta qaybo ka mid ah iyo bulshada qaybo ka mid ah marka waxaa meeshaas soo muuqatay in maadooyin ay dabar go'i karaan sidaa daraaddeed in marka loo baahan yahay in macallimiinta diiwaan geliya si loo ogaado imise macallin ayaa maada hebla joogta ee dhigi karta gobolka Banaadir haddaan mithaal bixiyo maanta haddii la weydiiyo agaasiga waxbarashada gobolka Banaadir mas'uuliyadda waxbarashada gobolka jooga haddii la weydiiyo imise macallin ee dhigi karta tarbiya islaamiya ama imise macallin ee dhigi karta xisaab ayaad haysataan ma ka jawaabi karno haddii la weydiiyo imise macallin ayaad dabargo-aysa ayaa muxuu ahaa maadooyinka qaybo ka mid ah ee macallimiintooda ay yar tahay si macallimiintaas loo badiyo lagama jawaabi karo waxaana wadnaa qorshihii waxbarashada ee 5 sano soo socota taasoo ay muhiim tahay inaan ku darno muxuu ahaa habka macallimiinta muxuu ahaa loo tababarayo macallimiinta qaybaha kala duwan sida muxuu ahaa loo tayeynayo iyo maadooyinka aan isleenahay way baaba'ayaan macallimiin looma hayo in muxuu ahaa lagu darsado qorshaha 5 sano ee soo socota sidoo kale macallinkeenna waxaa u baahannahay inaan tababarno waxaa jira tababaro badan oo macallimiinta loo sameeyey hay-ado badan oo kala duwana macallimiinta u sameeyey tababarkaasi ma aha tababar macallinkeenna Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ka ah macallin maxaa tababar la dhihi karo oo la taaban karo oo la dhihi karo maadadaas ayuu macallinkan ku tababartay tababar intaas la eegun qaatay waxaasuu ka jawaabi karaa ama wuxuu gaarsiin karaa ardada tayadaas uu gaarsiin karaa ma aha marka maadaama ay tahay anaga muxuu ahaa mas'uuliyadeenna ay tahay inaan ogaano macallinkeenna waxa uu ku tababartay iyo wax uu yaqaano ayaa waxaa keentay marka inaan macallinka diiwaan gelino markaan diiwaan gelino aan u sameyno tababaro aan naqaano oo aan taaban karno oo macallinkeenna markii tababaradaas u qaato aan dhihi karno macallin hebel macallimiinta noocaasa maadadaasi ku tababarteen meeshaasina muxuu ahaa ay gaarsiin karaan ardadeenna waxaan u sameynaynaa diiwaangelintan waxaa waaye inaan macallimiintii tababarno qaybaha kala duwan ee tababarka macallimiinta u baahan yihiin aan u sameyno sidoo kale macallimiinta waxay u baahan yihiin in muxuu macallinka la ilaaliyo in macallinka la ixtiraamo in macallinka sharafkiisa kor loo qaado maanta macallimiinteen magaalada meesha rabo ma mari karaan arrinta hadda aan ka soo hadlahay oo ahayd muxuu ahaa imtixaanka qaybihii imtixaanaadka aan soo qaadnay aan ku dhibtoonnay inuu yahay waxaan macallin yahay mise macallin maaha in laga baxo oo aan ogaano imtixaanka markaan dejinayno macallimiinta noo dejinaysa inay noqdaan macallimiin aan naqaano
hadda waxaan noo soo dhow imtixaanaadka xilligoodii baa soo dhow yahay waxaan rabnaa ka hor inaan ogaano macallimiinta imtixaanka noo dejinaysa ayaa waaye marka macallinkii aan naqaano aan diiwaan gelinay ayaan tababar siin karnaa si imtixaanka u dejiyo macallinka aan diiwaan gelinay oo aan ID card siinay oo aqoonsi siinay ayaan dhihi karnaa imtixaanka noo waardiye si aan uga baaqsano dhibaatooyinka imtixaanka naga haysta marka waxaan u baahnaa macallinkii imtixaanka dejinayay macallinkii imtixaanka ilaalinayay kii imtixaanka saxayay iyo macallinkii ka shaqaynayay arday tayo leh inuu noo soo saaro runtii macallimiinteenna waa sharafay naga mudan yihiin wanaag badanay naga mudan yihiin waqti badan bay na soo geliyeen annaga wax na soo bareen juhdi badan ay soo bixiyeen waxaan rabnaa inaan meeshaas kasii fiican gaarsiino sababta aan u qaadanay inaan hawshaan aan ku dhaqaaqno waxa waaye inaan macallinkeenina oo u noqdo macallin laga warqabo sababta aan qareennada u doodahaya macallimiinta ee macallinka u doodahaya waa annaga waxaan nahay maamulkii dowladeed ee mas-uulka ka ahaa waxbarashada gobolka banaadir macallinkiina annaga way qofka cidda qareenka u ah cidda macallinkeena dhisaysa ee tayanaysana waa annaga sababtoo ah mas-uuliyadeenna na saaran ayaa waxay noo sheegaysaa in aan macallin tayale soo saarno si aan arday tayale u soo saarno waxaa dhacay manhajkii tayale waa haysanaa manhajkii hadduu tayale yahay macallinka tayale hayna wax ma tarahaya manhajkii haddii manhaj tayale aan haysano oo macallin tayale aan haysanana waxaa noo soo baxaya arday tayale marka arrintan waa mas-uuliyad wadareed waa mas-uuliyad ka dhexaysa waalidiinta bahda waxbarashada iyo dhammaan ummadda ku nool gobolka banaadir marka mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa inaan wada qaadanno annaguna in ku hogaamino mas-uuliyaddaas ana ka soo baxno middana saaran markaas waxaan helaynaa macallin tayaysan oo meel fiican noo jooga waxaan rajaynayaa 5 sano gudahood isbeddelkaas fiican noo soo baxo 2025 markii la gaaro ma jiri doono macallin aan shahaado haysan inuu wax ka dhigo dugsiyada waxbarashada gobolka banaadir dhammaantood waxaa wax ka dhigi doona oo keli ah macallinkii haysta shahaado ku habboon macallinka shahaado waxbarasho macallinka haysta ayaa wax ka dhigi doona tababarkeena hadda kabacdi ma noqon doono tababar macallimiinteena loo soo waarido oo cid kale u soo warido ama ajnabiga cid kale hadduu aleedno marka sidaa daraaddeed waxaan arrinta u sameynaa waxa waaye inaan helno arrintaas waa mahadsantihiin